Salaamu calaykum. Maalmahan in badan oo inaga naga mid ah waxa ay ka cabanayaan caajis iyo in aysan wax camal ahayn sababtoo ah fayruska adduunka waalay ee loo yaqaano corona dartii. Iyadoo aan ognahay inay jiraan waxyaabo kale oo uu qofku ku mashquuli karo sida internetka, TV-ga, buugaagta iyo wixii la mid ah. Iyadoo aan intaa heesano weli waan cabanaynaa. Laakiin bal ka baran haddii aad adigoo keli ah oo cidna aysan kula jirin aad ku sugnaan lahayd meel aadanuhu ay ka fog yihiin. Dhab ahaantii ani ahaan waxaan u dhiman lahaa argagax isla waqtigaaba. Laakiin waxaa jira qof uu nasiibkiisa noqday in uu la kulmo dhacdo noocaasiyoo kale, waana badbaaxe u dhashay dalka Scotland, Alexander Selkirk. Ninkani wuxuu si degdeg ah u gaaray go'aan, balse isla waqtigii waa uu ka shalaayay go'aankaasi. Haddaba muxuu ahaa go'aankaasi? Sidee ayuuna ugu shalaayay go'aankaasi? Haddaba aan ogaano sheekadiisa. Alexander Selkirk wuxuu dhashay sanadkii 1676. Wuxuu ku dhashay tuulo u dhow xeeb ku taala waddanka Scotland. Alexander aabihii wuxuu ahaa nin kabatalo ah, isagoo 19 jir ah. Sanadkuna uu ahaa 1695 ayuu galay safar dhinaca badda ah, isagoo isaga cararay qoyskiisa dhibaatooyin dhaqaale awgii. Wuxuu raacay koox burcad badeed ah, balse sannado kadib ayuu dib ugu soo laabtay tuuladii. Laakiin muddo kadib walaalihiisa ayay isku dhaceen, gurigana waa uu isaga tegay. Markii labaad sanadkii 1703 wuxuu safar lagu eryanayay burcadbadeedii ku sugnayd xeebaha koonfureed ku weheliyey nin badmaaxe ah oo lagu magacaabo Dan Bear. Muddo kadib Alexander wuxuu noqday mid ku caanbaxay safarada badda, isagoo ugu dambeyntii kabtan looga dhigay mid ka mid ah doomaha lagu dagaalamo. Sanadkii 1704 doonidani waxay ahayd mid inta ugu badan ku safarto gobollada koonfureed ee xeebaha bari ee koonfurta Ameerika. Waxaana dhacday in doonidii uu kabtanka ka ahaa ee cagadhigatay jasiirad lagu magacaabo Mars si ay halkaa biyo ugu qaadato, balse khilaaf baasan ayaa wuxuu ka dilaacay doonidii dusheeda, waxaana uu u dhexeeyey Alexander iyo ninka doonida kaxeynayay ee lagu magacaabo Thomas. Taasina waxay keentay in Alexander aad u caroodo, si degdeg ahna waxa uu u qaatay go'aan uu aad kaga shalaayay, sababtoo ah wuxuu ka dalbaday kabtankii doonida inuu iska dhaqaajiyo, isagana uu ka tago si uu keligiisa ugu nagaado jasiiradda. Wuxuu sidoo kale ka codsaday in uu u dhaafo waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Laakiin doonidii markii ay isku diyaarisay inay ambabaxdo, Alexander go'aankiisii waa uu ka laabtay. Laakiin waqtigii ayaa ka tegay, sababtoo ah kabtankii waa uu diiday in uu dib ugu soo laabto Alexander. Doonidii waa ay ambabaxday iyadoo Alexander keligiis kaga tagtay jasiiradda, isaga iyo alaabtii uu watay oo ay ka mid ahayd boorsadiisii khaaska ahayd. Waxyaabihii looga tegay waxaa ka mid ah qorigii uu watay, sanduuq, mindi, jalmad loogu talagalay in lagu qaato biyaha, buug English ah, iyo mid kaloo ay ku qoran yihiin heeso. Inkasta oo Alexander arrintani qabsatay, haddana wuxuu hami ka lahaa in dooni kale ay jasiiradda soo mari doonto, balse doomaha inta ugu badan jasiiradaha waxa ay ugu soo xiran jireen oo keliya in ay sahay ka qaataan ama in ay doomankooda ku hagaajistaan haddii ay ciladi ku timaado. Alexander sugitaankii ayaa ku dheeraaday ilaa uu nafsadiisa ka ilaabo oo uu quusto. Jasiiradda Mars ee Alexander looga tegay waxay ahayd masaaxo ku fadhiso 19 kiilomitir dherer ahaan, balaceeduna wuxuu ahaa 7.5. Maalmihii ugu horeeyey ee Alexander uu jasiiraddaasi ku sugnaa, wuxuu la kulmay cabsi, murug iyo xaalad midda ugu xun iyo nolol midda ugu adag. 8 bilood ee ugu horeysay si walba ayuu isugu dayay in uu la qabsado nolosha cusub ee jasiiradda, laakiin arrintaa aad ayay u adkeed. Maalin weliba wuxuu fariisan jiray xeebta, isagoo rajo ka leh inuu la kulmo dooni ilaa ay qoraxda ka dhacdo. Markii ay qoraxda dhacdana, xaaladdiisa waa ay ka sii dari jirtay, sababtoo ah codadka xayawaanada ee xilliga habeenkii waxa ay ku kalifi jireen in ay ka soo dhici weydo hurdo, kaba daran murugada iyo kelinimada haysatay. Xilliyada maalintii inta ugu badan keligii ayuu isla hadli jiray, halka mararka qaar uu iska oon jiray ilaa uu ku sigtay in uu noloshiisa isdhaafiyo. Laakiin bilo kadib wuxuu bilaabay Alexander in uu la qabsado noloshiisii cusbeed. Kelinimadana waxba uma uusan arag, wuxuuna dhistay 2 aqal. Mid wuxuu ugu talagalay in uu seexdo oo uu wax ku akhristo, halka midka kalena uu ku kaydsan jiray raashinkiisa. Wuxuu inta badan ugaarsan jiray
diidiinka. Sidoo kale waxaa jiray xayawaano kale oo uu ugaarsan jiray, maqaarkooduna waxa uu ka tolan jiray saraawiil, lafahooduna waxa uu u adeegsan jiray agab ahaan. Sidoo kale eeyihii ku sugnaa badda ayuu wuxuu ka dhigtay asxaab u qaas ah oo uu cidlada ka weheshado. Sidaa daraaddeed wuxuu awood u yeeshay in uu nafsadiisa baahi ka badbaadiyo. Laakiin mararka qaar wuxuu la kulmayay dhibaatooyin iska yaryar. Mushkiladda ugu weyn ee qabsatay Alexander waxay ahayd dooliga, sababtoo ah wuxuu caadaystay dooliga in uu ka cuno dharkiisa iyo xitaa raashinkiisa. Balse wuxuu kaga adkaaday bisado uu aad u tarbiyeeyey, taasi oo ugu dambeyntii ka takhalustay dooligii dhibi jiray. Maadaama Alexander uu heen wax camal ah, waqtigiisa inta ugu badan wuxuu ku lumin jiray akhriska buugaagta uu watay. Waxaa xusid mudan in uu Alexander ku dhowaaday in uu ilaabo luuqadiisa, maadaama uu keli ahaa. Qaar ka mid ah ereyada luuqadiisa ayuu si xaqiiq ah u ilaabay. Si kastaba ha ahaatee, Alexander jasiiradda ayuu isaga nagaaday. Balse taariikhdu markii ay ahayd 31 Janaayo 1709, koox kalluumaysato ah ayaa waxay arkeen iftiin ka imaanayay dhanka jasiiradda Mars, iyagoo u qaatay in iftiinka uu yahay dooni halkaa ku xiratay. Laakiin markii ay halkaa tageen, waxay arkeen Alexander oo muuqaalkiisu isu beddelay mid laga naxo, iyagoo xitaa fahmi waayey qaar ka mid ah ereyadiisa. Halkii ayayna ka kaxeeyeen kadib 4 sano iyo 4 bilood oo uu jasiiradda ku sugnaa. Waxayna gaareen waddanka Ingiriiska sanadka markuu ahaa 1711. Alexander waddankiisa ayuu ku laabtay isagoo nabad qabo, laakiin aad ayuu u daalnaa. Waxaa jirtay in qisada Alexander uu maqaal ka qoray qoraaga lagu magacaabo Richard, wuxuuna ku qoray majalad ku taalo waddanka Ingiriiska sanadkii 1713. waxaana laga maarmaan ah in aan xusno qoraaga lagu magacaabo Daniel Defoe. Qoraagan wuxuu qoray qiso caalami ah oo uu ugu magac daray Robinson Crusoe. Wuxuu qisadan isagana kaga hadlay sheekada Alexander. Alexander wuxuu sabab u noqday in uu qoraagan aad caan u noqdo. Waxaa xusid mudan in jasiiradda Alexander keligiisa ku noolaa ee lagu magacaabayay Mars loogu magac daray Alexander Selkirk. Alexanderna wuxuu geeriyooday sanadkii 1721 xanuun ku dhacay awgii. Gabagabada sheekada, qof waliba oo ka sheeganayo kalinimo, ama xitaa haddii aad adigu ka sheeganayso kalinimo, waxaad Ilaahay ugu mahad celisaa in ay hareerahaaga joogaan bini'aadam. In aad la sheekaysato dadka waa nicmo, mana ogaan kartid qiimaheeda ilaa aad weydo. Muuqaalkan halkaa ayuu ku egyahay. waadna ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. waxaa inoo balan ah muuqaalkan muuqaalka xiga. wabilaahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.